waxaa maanta soo afjarmay nin kastoo boorso watay ee lahaa doorasho dadban ayaan aadayaa iyo teendhadii mar haddii la bixiyo kaarkii codbixinta. ummadda soomaaliyeed waxay sugaysay dhowr iyo konton sano maalin lamida maanta oo kale oo ay runtii waxawaaye codkooda inay ku ceelbaxaan ay u diyaargaroobaan. mar haddaad aragtaan kaararkii oo saf loogu jiro, kaararkii codbixinta oo la qaadanayo, taas waxay calaamad u tahay in ay runtii waxawaaye doorasho dadban iyo 4.5 iyo anigaa kaa reer badan iyo anigaa kaa awood badan inay maanta soo afjarantay. maanta waxaan leenahay guul ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, gaar ahaan magaalada muqdisho, magaalo ay ku nooshahay 4 milyan iyo ka badan, oo runtii waxawaaye xuquuq aan lahayn, oo aanan xaq lahayn, oo aanan waxawaaye xildhibaan lahayn, oo aanan aqal sare haba yaraatee wax matalaada aan ku lahayn. runtii waxaan leenahay guul iyo gobonimo ayaan leenahay maanta magaalada muqdisho mar haddii ay u dareersadeen kaararkii codbixinta bisha 31 in ay runtii waxawaaye musharaxi iyo runtii muwaadinka ay ku faraxsan yihiin codkooda kusoo dooran doona. marka waa guul. tan labaad, ummadda soomaaliyeed waxay ugu dhigan tahay maanta oo kale kaararkan la bixiyey in ay waxawaaye ka baxayso waxa ay wata dowlad hebel iyo waxa ay wata dowlad heblaayo iyo waxaan haystaa lacag fara badan oo aan waxawaaye xildhibaanada ku iibsanaya. maanta ayay soo afjarantay iyadana. marka waxaa leenahay waa guul oo runtii waxawaaye ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay gebi ahaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada muqdisho oo runtii waxawaaye codkooda ku ceelbixi doona. marka waxaan leenahay guul iyo gobonimo.